gabar ayaa habeenkii hurday aabaheed ayaa bustaha ka qaaday waxay kacday ayadoo wareersan balse wuxuu si xun ugu jiiday timaha wuxuu dib ugu jiiday sariirta aabahan waxa uu si cabsi leh u eegay jirkeeda gabadhu aad bay u argagaxday jirkeedana wuu gariiray waxay dareentay in xaaladdu aysan ahayn mid sax ah aabahana si lama filaan ayuu uga tegay isagoo iska dhaqaaqay gabadhuna waxay dareentay cabsi weyn subaxdiina qoyska ayaa quraac u fadhiistay gabadhuna way aamusnayd waayo aabaheed ayaa ku dayay waxay ka fikirtay in hooyadeed u sheegtay wixii dhacay intii aysan go'aan gaarinna aabaheed ayaa u yimid wuxuuna ula hadlay si degan oo caadi ah u dhaqmay sidii inaysan waxba dhicin habeenkaas gabadhiin waxay u fiirisay si cara leh balse waxba ma aysan oran oo waa ayna ka tagtay dhaqanka hooyada ayaa si layaab leh u muujisay dabeecad yaab leh cuntada ay si xoogan miiska u dhigtay waxay bilowday inay si cabsi leh oo degdeg ah cunto ficilkeedan wuxuu u muuqday mid cabsi leh wiil yar ayaa bilaabay inuu ooyo cabsi darteeda habeenkiina walaasha weyn waxay ku jirtay musqusha waxay maqashay qof albaabka garaacaya markay muraayada ka nadiifisay uumiga waxay aragtay walaasheedna waxay u taagnay si aan dhaqaaq lahayn waxayna ku tiri hadal naxdin leh dilna qof walba oo guriga ku jira gabadha weyn way argagaxday waxay u orday qolka walaasheed si ay u hubiso walaashin waxay sheegtay inaysan meelna u bixin oo ay qolka joogtay kadib waxay u sheegtay waxa aabaha sameeyay habeenkii hore labadooduba aad bay u baqeen salam filaana albaabka ayaa la jibiyey aabaha ayaa soo galay isagoo wata mindi box cutter indhihiis waxay u muuqdeen kuwo qabow oo aan naxariis lahayn wuxuu isku dayay inuu weeraro gabdhaha gabadha weyn ayaa riixday aabaha oo la baxsatay walaasheed isla mar ahaantaasina aabaha si degdeg ay hortooda ugu soo muuqday wuxuuna mar kale jiiday timaha gabadha weyn kadibna waa uu tuuray walaash yar ayaa isku dayday inay ka baxsato goobta aabahan waxa uu aaday jikada kadibna uu qaatay dubbe hammer warodaygu waaba halise gabadha weyna marka ay toostay waxay bilowday inay raadiso walaasheed waxayna dareentay qof gadaasheeda taagan markay jeesatayna aabeed ayaa meesha taagnaa isagoo dubbe kor u haya gabadhin waa ay qaylisay waa ayna isku laabantay cabsi darteeda inta uusan ku dhufanna qaylada walaash yar ayaa joojisay si ay u difaacdo walaasheeda weyn walaasha yar ayaana digsi ku dhufatay aabaha laakiin aabaha waxba kama aysan yeelin si lama filaan ahna cod kale ayaa laga maqlayay hoosta guriga aabihii hortooda joogay ayaa ka falceliyey codkaas waxa uuna u dhaqaaqay dhinaca kale kadibna aaba kale ayaa ka soo muuqday qaybta hoose wuxuuna u muuqday mid caadi ah oo wareersan runaantii sheekadani waa cabsi balse maxaa dhici kara gabdhihiina waxay noqdeen kuwo si buuxda u jahwareersan waxayna garan waayeen midka saxda ahaa isla mar ahaantaasina hooyo kale ayaa soo muuqatay iyadoo aan wax dareen aan lahayn